السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته guys meel walba adduunka ku joogtaan waan salaamaya salaanta islaamka and guys last 2 days YouTube kayga video ma soo gelin wala TikTok kayga video ma soo gelin runtii horta meeshan waxaan rabaa maanta inaan iga soo jeediyo sababta aan u maqnaa iyo cilada ay qabsatay waqtigaas horta والله dunidan waxa waaye waxyaalo badan isku qasan abti macaane horta intaan program kore u gelin waxaan ku leeyahay hadii ay u cusubtay subscribe channel kayga hadii aad release joogtana love you de sidaas asku la socono hadii ay igu cusubtahay intaan subscribe saarto like ku darto share ku darto waliba comment dhiirigelin ku reeb aadan u mahadsantiin and come on program ka hore u galaa and guys ilgoyga u jeedaan ma aha wallahi 2 days xabsi ku jira 2 days xabsi ku jira Nairobi aragteen dhagaxeedii ismiidkeeda and 2 days xabsi seexda alxamdulillah and lixdeed ilaahay u dhameystiray still alxamdulillah I'm proud to be Somali and inta kaas qabo wax biga ma halaaway insha Allah and teeda kale wallahi always hal xumaan markuu qof ugu sameeyo boqolaal wanaag ali sameeyaa wallahi that is why aan wax walba xumaan walba ilooba wallahi dad waxay u maleeyaan inaan ceeb beeranayo laakiin wallahi jacayl badan aan beertay wallahi thank you so much brother adiga isku dayo inaad dadka ceeb ugu beerto no day ay ku suurto galiso no day ceeb li qaaday sababtoo ah qof walba waxa lagu xukmin karaa indhihiisa iyo afkiisa wixii oo sameeyay haduu wax wanaagsan yahay haduu wax xun yahay aniga hadii aan hal maalin xitaa isku dayay hal maalin xitaa iska dhaafay hal sac wallahi inaan wax xumaan ku geysto brother hadii aan isku dayay ilaahay u jeedaa meesha aan fadhi alla iga makiciyo hatta hal sac hadii aan isku dayay nolosheedu wax xumaan inaan kugu sameeyo meesha aan fadhiyo gambarka aan ku fadhiyo wallahi alla iga makiciyo laakiin brother hadii aan mar walbo anaga wax dhibaato noo horseedayso noo soo dirsato nal jirtula isku dayayso xabsina sidiga isku dayayso brother waliba aniga bas aan ahayn hooyo Soomaaliyeed bro cunug yar nuujisanayso ina ka waday 3 saabiin gurigeeda brother xabsi waxa u go'aamisay inay seexato habeenka sabtida axad illa habeenka isniinta maxkamad loo aadi 3 days and night hooy ciyaalkeeda ka maqnaan karto ma jirto ciyaal weyn xitaa ma cunug yar brother oo xitaa aan fadhiisanaynin abo dameerka intuu ka aaday mi Soomaalinim ma jirto miya abo macaane abo wallahi waa ka xumahay inaan noo adeegsato shilimaadkii yaraa oo markii aad dhahday habeenna ma cunteeyo habeenna waa casheeya lagu aruuriyay inaan noo adeegsato aaba macaane ruux may kula noqotay bro waa ka xumahay hadii aad is leedahay mooha iyo istarjeebkooda waxba kuma jiro adaa waxaasad brother no anaga ilaahay ayaa wax walba noo haayo hadii ay nolosheena qoranta in xabs ku dhameysano forever cidna naga hor istaagayso nobody can save us hadii aysan noo qorneen saamahan alxamdulillah laakiin brother waxa ku leeyahay tartiib tilaabadaad waa ka dheerinaysaa tartiib bro tartiib sharciga hadii aad rabto inaan ku kala baxno si toos oo cadaalad brother ana alxamdulillah maanta binaanka joogaa waxaan u sabab brother hooyadii aabihii qof dhalin ima soo saareen qofaan wallahi magacaas xitaa ashraf sheegano madaxiisa binaanku maan imaanin binaanka waxa ay keena brother qofaan isku qabiil ahayn waxbana isku gelgelin bro waxa ku leeyahay thank you so much iyo gabar Soomaaliyeed wallahi iyo wiilal Soomaaliyeed oo just arkaan cadaaladda jecelna mar walba qofka la xaq daran yahay inay xaqiisa siiyaan hadaysan iyaga ahayn sidii aad jecleed noqon lahayd ani istar xabsiga 3 habeen iyo 3 maalin oo ku jir lahayn laakiin yaa ka diiday
rag ay soomaalinimada ku weyn tahay brada qof markuu xun yahay qof wanaagsanaa jiro bro dadku dhan wada xumo soomaali weyn I love you no day horta anaga brotherkeeda neceb misane dhaxdeena ka beereyso brada kala geystaan malaha waxaana ficil walba samee anigu hore waa sheegay ilaahu boqolaal aad kula mid tahay soo baxaan xitaa ay isku dayaan aan Esther inay iga fogeeyaan nobody oo iga fogeeyna brada Esther shalay walaashay ahayd maanta walaashay waay barina walaashay ahaane still garabkeeda taagnaana waa dhimana miswaan olana bas wax ka dhaxay malaha abti macaan waxba ha isdaalin adigii inta kula midka ah waxba ha isku daalinina yani ani Esther inaan kala geysaan no brada war macaan ani xoog waxa soo hela bro inaa dhahday mooha ay Esther hala kala geeyay lacag ku bixina abti macaan lacagta aan ka nagu bixinayso war aad ma wax ku qabsatid shaararkaada si u yaalaan ma artid abti macaan adiga ma ka labsatid kabii marka dhagax dhigi iimaanaysa wadata ilaa hadda bro adiga ma wax nafsadaada ma wax iskaaga tartid lacagtan astaalka beenbeenta inta nyaan shishid dhuuqdo soo tufayso ku bixinayso brotherkeeda abti macaan way ku anficee macaan dadka qaldin taada kaleete waxa acting kaada cid walba way taqaanaa bro macaane waxbo dadka acting kan iyo waxaan hatusin bro runta hadaa rabto brada cadaalada runta ima bro anaga waxaan diyaar u nahay dadweynaha hortooda wallahi inaan weyseysano 114 aan gacanta gelin xitaa daqiiqad waligaan inaan u tashanin si aan ku dhibaateen aan wallahi ku gelina gacanta war anaga always danteena bas wallahi bila bizukuna wax kale cid kale bro adigoo inaad hortan soo qabsato adiga bilaaway marka xaqiiqada ka hadal inaan soo caas adiga bilaaway haddana anaga door bidnay inaan raali gelin bixino oo brotherkeeda sheekadan ay afjarmato sababta inaan si jiidano waa laga fiican yahay dad walaalana dad Soomaaliya wadanahay waxaan ka door bidnay inaan sheekadan isku soo afjarno gabadhaas raali gelin bixisay aniga soo ragnimo bro waxa ku dhahay brother rag waa isqabtaa waa kii istarifo haddana heshiyo abo macaane wax allaal waxa iga tabanaysa miiska liimo diyaar ah iga raali noqo raali gelinta qaado maalinkaas aan raali gelin soo duubnay bis meeqa dambi misana meeqa brada shirqool aan noo sameysay mataqaana ina Esther soo wacdaan dhahdaan videoda ka wada bixiya call record inaan iga hayo aab macaane mid ma ahan shaki gali karto videoda A to Z kula soo duubay ninkaas bixi xujo ina meesha keentaan Esther markay ku dhahday wax kala taa nimay Esther just anaga hadal qaldan inuu sanaga bixin Esther waxay dhahday hadii ay jiri jirtay qof YouTube kula soo duubay ina videos u bixiso oo YouTube ka share kugu ahaan just to rabi inuu magac sameeyo videos ina u bixiso jiri jirtay diyaara una YouTube weyn oo wada tagayna diyaara unahay hadii nu gartaan lagu sii ku bixinayna waa qof xal u jeedo ko midaas missionkaas soo degteen weynii hirgel waasi midii xigto waa la soo dilay waa la afduubtay Esther muhaadad ii soo direen mission hanoo halagtay markaan baxnay oo biyo soo qoranay oo lagu dhahay meesha waxaas ka dhacay shirka intuu martu alafka mar meesha dhilooyinka mar meesha guriga dadka weyn adiga ka aqli badan asaa uma meereys gashay ka soo tag hadana mission waxa noo maleegtay gurigeena aniga soo galeen inaan laba gaar nagu horbakinto abraadana dhibaateys abti macaan one day 3 mission isku dayay alagis qaba baa dhinta bro hadii dhanka alla aksoo dhimato waa dhimanay soo gartay maahan qofdee Soomaalida abti indhaha malaha qofdee afar qof iskugu tagtay hal meel oo kuusan aan jirin sakiina lagu saray gacantana sakiin iga sare waxaas iyo gacantana ay jabanta saana la leeyahay isku meel ma galaan wax macquul ni weenaad maxaa ka qaldan anna horaan waan sheegay ninkan ku video soo fariisanayo waa full ma aha ninkan soo horfadhi waa nin kale qadarka raadinaysid ma ahan aaba ruuta isku sheego neeho dadka ku dhaarad gareenayo oo waxan kula abaabulayo been sideed hal ugu leedahay hadii la qabtana fitrig waa gadoomen aaba macaan beentaada bro markay soo afjarmay way soo afjarantad already dadka inta badna qaladka ka dhaadhacay kudi already way u jeedaan gabadhaasna ku dirta taageeraheedii heer waxay gaartay dhahdo wallahi ila yawmil qiyaamah ma cafinay cid hal maalin idul misay waliba qof anigu waxba dhibaato u geysanin awgeed ii soo caysay
ilaa heerkaas gabadh maxaa u gaarsiinay ka tag abow gabar kulama dhalan hooyo kuma dhalan bro maalin wal video aan soo sameynaa ku dhahoya abow jir yar meel yar danqada ma lihin miya bro gabadhan waa hooyo like dadeela dhalatay ee walaal u tahay brotherkeeda abow maxaa dhibaatada dhan ugu geysanay at least mooha ani ta gareeseed bro saasaa la qaato wallahi nin rag markaas dhaxdeen ay ahaan lahayd laakiin bro qof dumar ah hooyo ah ciyaal yar haasto abti xabsi inaad geliso inaad lacag ku bixiso bro kuma tahay abo I am very sorry adiga macal dadka support kugu siinayo hooyo Soomaaliyeed inaad qabato xirto 3 maalin ciyaalkeeda ha ka dhaxdo dadka support kugu siinayo abo walaha waa ka xumahay laakiin hal mid ha iloobin gawarob wiilaa la dhashay wiilaan guursan doono aabeena gabar u tahay inta ha iloobin brother intaas garabkeeda inay midna ka waanayso ilama ahan xabsigaas inaysan hal habeen ku seexanin ragaa juhdi u geliyay brother waqti ku bixiyay hal habeen ciyaalkeeda inay ka dhixin ragaa juhdi u bixiyay laakiin maalinkii ay xabsiga ku jirto subaxi gabadha xabsi gabadh gurigeeda in laga wado guri meesha la geeyay maghrib la soo siidaanayo abti macaane waqtigaas fiir ciyaalkeeda hadii la qaadan leed ka waran okay markay inta ciyaalkeeda ka maqanta bro adi lacag yar xitaa oo ciyaalka caani iskor lagu galo guriga ku dabare xitaa isdhehe ciyaalkeeda oo xitaa maalin ku dhaheen abti ay joogan gurigaas okay aaba ogta ma jiro gurigaas biil siinay inta gabadha xabsiga ku jirto ابو لعفاته برو نين رق مئهد والله بالله تعالى رق يقانا مئهد برو هذا نين رق تهبرادا او حنيا له برو والله وح والبدعو waxa ku fariisan leed xidiyahaaga si wax walba u xaliso hooyada Soomaaliyeed awgeed ani adina meel rab aska lacno ragnimo ahaan leed laakiin bro macaane hooyo ina xabsi marulbo misan dambi ee leh dush u surto brada waa ka xumahay dadka brada gabdhaha ka waalaayo waa dad masiirsan bro macal adigu masiirsan marka dad masiirsan is aruursadana kulleeyday masiiriyaalo brada waxba anaga qaadaysan malahan masiiriyaalihiina waxa anaga qaadaysan ilaahay wartu malahan anaga innocentnimadeena ku taagan waana ku taagnaan doonaa forever abti macaane cid taqaano wallahi gabdhaha xataa Soomaali oo xabsi ugu ark way yaabeen unbelievable waxay dhaheen qofkaas maxaa ka qaldan saan wuxuu sameeyay dadka dhan way kula socdaan bro dadka dhan waa ku arkaan ha u maleena xabsiga bis jireer bis inay joogto Soomaaliya ka shaqeysaa ka wada shaqeysaa bro social media way la wada socdaan marka abti macaane waxa la hoqayaan ha qodin hadaa qodane ha dheereen ku dhici doontaa mooshi hogan hadda adiga qodayso waxaan ka baxaa cid ka soo bixis in la waay والله ورعد ربط نيروبي إن عد باتيس دقيقتكم مقالات الصومالية وأكتين عد والبر وأكتين وأنا جوكتان هدا ربط قف إن عد باتيس دقيقتكم مقالانيسو لكن هدادا ربين وقتيكو مقالاني مركو حاكو شيء يا أبتي معاني هوجاس ينقون من أكو نعضو حقيقة يوصل نقول من أكو نعضو أبتي معاني حق صورنا والله برادا حق صور وعلى برو إلهي وكوجي ده نو أسمنس وأودا نفتاس يريست نفتان ينست كوجي برو البرخس كم قاعدة نس إنه كاسب هالمرة هذا كده دون قطعي برو وعبكم قاعدة نس لكن وقتي على وصينايا آدم بيجاج أوجس الله وطو أبت معاني وقتي وحال وصينايا قلالاتكم واحد أسمنس أوجس الله وطو حنون أجر أسكور هدوس أبت معاني ظلمي جاني والله إن إلهي قربكم السيو هذا الأوجين ظلمي برو والله جرتا مسجرنا ويكاسو بحي ظلمي برو إلهي رالك كما أهان ظلمي مركز Soomaaliya waxaan rabay inaan nii sheego last 2 days inaan xabsi ku jiray ay taageereed inta jecel inta iga naxayso inta isoo waceysay oo isoo garaaceysay wallahi masajaal waxaan u soo imaaday WhatsApp-ka arada ka badan miss call sidoo kale tay wali dadka qaar ee iga xumaadeen wallahi billahi ta'ala oo xitaa waxaa jiro dad qaar u maleeyay aan xumaan inaan telefoon 2 days ka oo qabale telefoonkaygu shidnaa muusan damin waxay u maleeyeen xumaan inaan telefoon ugu qaban waayo block qof isaar xitaa waa arkay wallahi xanaaq u yahnaq awgeed block u isaaray marka abaayo
aniga xumaan cidna uma qabo wallahi cid walbo lambarkayga qof walbo cusub waa ka qabtaa cid aan telefoon ku jaray cid aan ku dhageysto ma lahan cause haddii aan aniga nila sheekaysanin saaxiib nila noqonin waxba mihi aniga dadka aan wax ku ah waa idinka telefoonkiina haddaan inoo garayo nothing aniga zero ahay marka guys waan jecelahay dhammaantiin nima necbi wallahi I love you كدينا وحنا اسكو داي انت تليفونكي سو وعدي inaan qabaar galiyo dhibkii haystay message u reebay marka walaalayaal iskiga raali noqda inay hadii ay wax xumaatay daqiiqadaas ay soo wacday mise waqtigaada ay hurtay anigana aan ka qaban waayay marka xumaaniga ma ahan qof xabsi ku jira aha marka 2 days xabsi ku jiray alxamdulillah waxa ii suurtagal maanta inaan soo baxo insha Allah waxa ii balansan maxkamada ii balansan oo maalinka arbacada ah haduu alla idmo wixii ka soo baxo kulli waa wada arkeena insha Allah aniga waxa dan ugu jirto in cadaaladda ay soo baxdo runtana binaanka la keeno diyaar u nahay ma illa ay istaalada beenbeenta laga soo sameeyo wax walba dabagal culus socdo haduu alla in wax walba iyo ficil walbana aniga waxa diyaar u inaan soo gudbin iyo wax walba aan ku suganahay insha Allah inagana mar walba ducadeena nagu soo kaalmeeya waayo wallahi dad meel cid lagu dulminaayna laakiin إلهي دلمي رالي كما أهن إن شاء الله حقينا واسوينا هادو الله إدمو مركو دعادينا وانو مهم مرو البو دعادينا وانو مهم نوسو دعايا انت دعادينا اللي جرتنا دي سنخف اونا نعب مسلح خف وانا نعب حاكا بدن كومانان كينا نجعل love you guys ما لحد شي سميل استارت ملا ملاحي إدر سانتين سو مالوين ميلو البدون ذاك جوكتان